Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Markuu horeys waxaa mahad iskale allah subxaanahu wa tacaala. Maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago calaamadaha lagu garto uurka cusub ama uurka bilowga ah. Waxaa jira calaamado badan oo lagu garto hooyadu marka ay uur leedahay, laakiin calaamadaha kaliya kuma filna in la yiraahdo hooyadu uur ay leedahay, oo waxay u baahan tahay hooyadu inay sameyso baaris si ay u ogaato inay uur leedahay. Waxaan idiin soo gudbinayaa calaamadaha lagu garto hooyadu markay uur qaado. Waxaan u kala saarinaa calaamado soo muuqda bilaha hore ee uurka iyo calaamado soo muuqda bilaha dambe ee uurka. Haddaan ku hormaro calaamadaha soo muuqda bilaha hore ee uurka, waxaa ka mid ah in hooyadu inay isku aragto caadadii oo joogsata ama la waayo, waxaana loo yaqaanaa amenorrhea. Inkastoo ay jiraan xanuuno keena in caadada in la waayo ama ay joogsato xilliga uusan uurka jirin, laakiin caadada oo la waayo waxay ka mid tahay calaamadaha ugu horeeya ee lagu garto inuu uur jiro. Waxaa kaloo ka mid ah hooyada in lagu arko dhiig yar oo ka yimaada xagga hoose ee xubinta taranka ah, waana dhiig la arko markii ay bacrintu ay jirto, waxaana loo yaqaanaa implantation bleeding ama fertilization bleeding. Waxaa kaloo ka mid ah sidoo kale in hooyada inay isku aragto xanuun iyo barar lagu arko naasaha, waxaana badanaaba sababa isbedelada ku imaanaya hormoniska sida estrogen iyo progesterone. Xilligaana naasaha waxaa loo diyaarinayaa lactation ama naasnuujinta cunuga. Waxaa kaloo ka mid ah in hooyada inay isku aragto xanuun lagu arko qeybaha hoose ee caloosha, waxaana loo yaqaanaa lower abdominal pain, waxaana sababa fididda iyo weynaanshaha uu sameynayo ilmagaleenka maadaama uu uurku isku diyaarinayo. Sidoo kale hooyadu waxay isku arkaysaa bilaha hore ee uurka calaamadaha sida inay isku aragto oo kale labolabo iyo matag, waxaana loo yaqaanaa Soomaali ahaan waxaan u naqaanaa walala. Waxaa kaloo ka mid in hooyadu isku aragto daal iyo tabardari, madax xanuun, taa oo badanaaba lagu garto dhiig yari markii ay jirto. Sidoo kale waxaa la sheegaa inay sabab u yihiin isbedelada ku imaanaya hormoniska hooyadu ay leedahay sida estrogenka iyo progesteronka. Waxaa kaloo ka mid in isbedel inuu ku yimaado dhammaan dabeecadaha hooyada, oo in lagu arko xanaaq fara badan kaas oo ay ka arki karaan dadka ay la nooshahay. Sidoo kale waxaa isbedel ku imaanaya urta iyo dhadhanka hooyada, oo taasi waxay sababaysaa inay hooyadu ay dalbato cuntooyin gaar ah, qaarka kalena ay nacdo. Sidoo kale waxaa ka mid ah in hooyadu isku aragto waxa loo yaqaan constipation, oo ah in hooyada inay caloosha fariisato oo ay socon weydo, waxaana sabab u ah hormoonka loo yaqaan progesterone. Wuxuu hoos u dhigayaa socodka iyo qulqulka xiidmaha, waayo wuxuu ku sameynaya waxa loo yaqaan relaxation, taa oo keenaysa in hooyadii in calooshadii inay socon weyso oo ay fariisato. Calaamadaha soo muuqda bilaha dambe ee uurka waxaa ka mid ah in hooyada inay isku aragto laabjeex oo aan u naqaano heartburn. Badanaana wuxuu dhacaa laabjeexa sababtu waxay tahay ilmagaleenka ayaa wuxuu caadi saarayaa caloosha, taa oo keenaysa aashta caloosha ku jirta inay u gudubto marinka cuntada tubada loo yaqaano esophagus, taana waxay keenaysaa hooyada inay laabjeex fara badan ay dareento. Waxaa kaloo ka mid ah calaamadaha la arko bilaha dambe ee uurka in hooyada inay kaadida ay ka fogato oo loo yaqaano urinary incontinency. Taasna waxaa sabab u ah ama keena ilmagaleenka ayaa wuxuu caadi saarayaa kaadiheyska, taa oo keenaysa in hooyadii inay kaadidii ay ka fogato. Waxaa kaloo ka mid ah in hooyada inay isku aragto barar ku yimaada lugaha qeybaha hoose oo cagaha iyo lugaha, sidaad aragtaan sawirka cagaha ayaa barar ku imaanaya. Badanaana wuxuu ka mid yahay calaamadaha la arko bilaha dambe ee uurka. Waxaa kaloo ka mid ah in hooyada inay isku aragto baahi fara badan iyo hurdo la-aan. Calaamadaha kale la arko bilaha dambe ee uurka waxaa ka mid ah inay hooyadu ay dareento caloosha oo soo weynaata iyo dhaqdhaqaaq uu sameeyo cunuga bilaha dambe ee uurka. Haddaad channelkeena ku cusub tahay, fadlan subscribe sar oo nagu soo bir si aad ula socoto cashiraha caafimaadka ee taxanaha ah ee soo socda. Cashirkeena xiga wuxuu noqon doonaa hadduu alla idmo daawooyinka loogu hortago uurka, ama waxaan u naqaano family planning medications. Muuqaalka share garay haddaad wax badan ka faa'iiday. Intaan dib ugu kulmayna cashirkeena xiga waxaan idin leenahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.